Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay aad ku jeclaan soo dhawaada qalbi furan iyo saafiic ku soo dhawaada ayaa idin leeyahay mar waliba Ramadan routiinkeena day 8 weeyaan maanta waxaan idin wadaagayaa unwaan suxuurteena meesha waxaan ku haysanaa waa boorish mise sidaad u garanaysaanba oatmeal qof walba siduu u garanayo halkan waxaan kusoo darsanay waa looska shiidan ama peanut butter marka aniga saa idin sheegaba ma jecli cunada oo heavyga ah inaan ku suxuurto halkan waxaan kusoo darsanaynaa waa caano laakiin mar waliba waxaan leeyahay daawayaasheeda inay waxba badan ka faa'iidaystaan weight loss journey-geena ah iskula jirno marka soo dhawaada qalbi furniid saafi ah meeshaan waxaa markaan ku darsado frinjeerka aynu gashanaynaa waxaan rabnaa inuu soo gareysmo kadib marka wax inaad garisid mise waxaad ku samaysid uma baahno wax alaala waxaad markaas u baahan tahay kor ugu darsanaysaa waana cunaysaa marka dad badan waxaa jirta oo malab ku darsadaan aniga maanta malab iima oolin dad waxaa jirta sokor ku darsada marka aniga sokor maba isticmaali baryahan malabkana iima oolin marka I can do without it aan leeyahay marka saas ayaan u hagaagsaday frinjeerka ayaan waxyar gelinaynaa marka xilliga suxuurta baan isku soo noqonaynaa marka mar waliba waxaan rabaa inaan idin faa'iideeyo marka subscribe like-ta waa dhankiina idin leeyahay hana iga cajisina waana idinka mahadcelinaya sida quruxda badan aad igu soo dhaweyseen mar waliba marka oatmeal-kan mise boorishkaas aad u garanaysaan saa markaa u hagaagsatay horta caloosha aad ay ugu fiican tahay adiga iyo calool dibris waa isdayseen markaa saliidii wax cuntid caloosha way dibirtaa markaa sooman tahay marka adiga iyo maxaa la dhahaa gastric iyo calool dibirayso waa isdayseen ma fahanteen waana waxaad dareemaysaa qof dharagsan the whole day marka soo dhawaada ay idin leeyahay mar waliba marka waa kana xilliga suxuurta ayaa la gaaray aniga waxaan ku darsaday waa yogurtkan probiotic aad iyo aad aan u jeclahay waana ila ogtihiin markii lasoo tijaabiyay aan leeyahay moos yarna dhac ayaan kor ugu saaray marka waxaa waaye waa full meal aan dhihi karaa aad iyo aad aan uga helaa aniga I don't know about you marka ila soo tijaabi ayaan ku leeyahay wuxuuna kaa caawinayaa haddaad cholesterol leedahay oo kale aad uu kugu fiican yahay haddaad rabtid inaad miisaanka iska ridid sideedoo kale aad iyo aad ayuu kugu fiican yahay haddaad rabtid caloosha inaad socodsiisid intaba maasha allah tabaarakallah adiga iyo dibiro waa isdaysan adiga gastric waa isdaysan aan ku dhahay marka probiotic-kan aad ayuu kisto dhanaan u yahay marka haddaad dad reer dhanaanaadan ahayn malab ku darso ayaan ku leeyahay anigana caanadaas aad ayaan u jeclahay waan iska cabaa xilliga suxuurta liannahu waxaa isleeyahay marka amay caloosha ku qaboojisaa ma fahanteen marka soo dhawaada qalbi furaniid safi mar walba ku soo dhawaada subscribe to like dee waa dhankiina ayaa idin leeyahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak shukran sidii quruxda badan aad ii soo dhaweyseen sida subscribe dara ay ku saareysaan mar waliba waa idinka mahadcelinaya walaashii mas'uulka haddaad igu cusub waxaa ku leeyahay subscribe-ta iyo like-ta ha ila dhaafin adigana waxba kuuma hanin waxweyn bay ii taraysaa midda labaad iga raali noqda 2 beri ayaan idinka maqnaa maanta alxamdulilah waxaynu galaynaa waa ramadaankeena day 8 marka maanta waxaa idinla wadaagayay suxuur yar oo fudayd ah oon waqti ka qaadanaynin oo wax karisi waxaas kaaga baahneen oona aad iyo aad kugu fiican siba digestion-kaadii and because it contains maxaa la dhahaa a lot of fiber badan ayuu leeyahay marka dee ka faa'iidaysi wacan ayaa idin leeyahay ani awal waa idin sheegay ma jecli cunada culeyska ah and then now the oatmeal ayaa la dhahaa way yara maxaa la dhahaaye ani ahaanteydii way ugu culus tahay markaan waxaa iska jeclaa inaan ayada biyo iyo timiran cabo misane maxaa la dhahaa wax yar oo adiga cabitaan aan shiitay oo maxaa la pineapple-ki iyo adiga detoxing maxaa la dhahaa juices inaan shiito ayaan jeclahay mar waliba laakiin idinka dartiina ayaan usoo galay inaan maxaa la dhahaa inaad iga faa'iidaysataan anigana aan idinka faa'iidaysto marka waxaan isdhahay marka walaalaha laga yaabaa dad ayaa jirta oo maybe cabitaankaas cabaysa mise biyahaas cabaysa ay ku yartahay oo isleeyihiin dee ma waxaas baa maalin dhan ku sonnaa marka waa kaasaa oatmeal-kaas haddaa cuntid wallahi guaranteed waaye number 1 gaajo kuma qabanayso
and then number 2 waxaa weeyaan you won't feel bloated adiga maanta ana calooshaadii inay dibirsan tahay ma dareentaa markaa cuno saliid cuntid mise wixii bur saliidii soo hartay aad xaaqdid mise wax leedayaa cuntid bariis ahaato waxa ahaato the next morning waxaad arkaysaa waxaad isku arkaysaa rather you're feeling bloated like waxaad dareemaysaa inaad maxaa la dhahaa aad dibirsan tahay okay inaad dibirsan tahay aad dareemaysaa maanta dhan waxaa noqonaysaa adiga dhan ma tihid comfortable marka intaasoo dhan ayay kaa caawinaysaa gaajo ku qabanayso calooshaadana maxaa la dhahaa dibir dhan ma yeelanayso gaas kuma kicinayso maasha allah tabaaraka allah saa idin sheegay aniga malab gurigii ima olin but badanaan ma isticmaali sokortana iskaba haaba sheeginba maba isticmaali baryahan marka haddaad isleedahay kastoo ay yara dhanaan because of the probiotic yogurt marka waxaad sameynaysaa marka yogurtka ku dartid waxaad ku daraysaa wax yar oo malab ah oo yacni macaan ku yeesho maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad ugu helaysaa taas aniga hubo caanadan waxaan u cabay waxaa waaye waxaa isleeyahay gastric wax kugu kacaan marka badanaan ani caanada markii qawowdahaan jeclahay inaan cabo marka taas waay haddaa rabtid waa iska dhaafi kartaa haddaa rabtid waa ku cabi kartaa the choice is yours always marka insha allah waxyaabo kalene oo aad ku suxuuran kartaan waa idin soo dhigaya oo aad iyo aad maxaa la dhahaa idin anfacayo anigana i anfacayo insha allah oona kaa caawinayo your weight loss marka vlogan aan hadda waxuu sameynaya waxaa waaye marka personally waxaan rabay inaan I share with you my weight loss journey and then maxaa la yiraahdaa every step of the way yeah wax walba aan sameynayo oo aan miisaanka aan ku ridi karo oo aan isleeyahay waad ku riday inaan idin maxaa la wadaago oo aan kala faa'iideysano ma fahantay marka aniga miyii maanta ma dhihay 40 mise 50 kiilo iska ridi rabaa maya alxamdulillah ani caatani ma soo maray cayilna waa kana hadirtana miisaanka iska riday alxamdulillah marka ani horta personally ma ihi dadka oo caatinimada qurxoon okay you need to know your body type dad waxaa jirto cayilka qurxoon dad waxaa jirto caatinimada qurxoon everybody has different shapes okay marka ani ahaantayda alxamdulillah caatinimada kuma qurxooni marka caata iskama dhigi rabi waxaan rabaa in yar inaan iska rido oo aniga when I'm comfortable with my own body and okay fine intaan ayaad ku eg tahay marka inta aan maanta aniga aan rajeynaa ilaahay gaarsiiyo waxaan rabaa meel oo yadigeer dhaxada oona burneyn oona caateysneyn ma fahantay taasna mar waliba dumarku waynu qurxoonnahay ma fahanteen marka mar waliba waxa laala wax badan ay idin soo wadaa marka idinka una hayga daalina subscribe-tan ii saara intaan video dambe aynu ku kulmi doono waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim ramadaan mubaarak